بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما أنت هالكن شركة جرايد أنو فردينو هذا نوعي مدح دقمتكي شركة جرايد ودارين ياهي همبليو أنو همبليين أنو مركا وقوه الرئيسة قولها وكيل هذا الصومالي لان sidii sharafta lahayd ee dimuqraadinimadu ku jirtay ee maanta loo doortay gudoomiyihii koowaad gudoomiye-ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane axmed yaasiin sheekh cali ayaanle waxaan leenahay gudoomiyaha cusub ee la doortayna waxaan leenahay mabruuq alf mabruuq aad iyo aad baanu kugu hambalyeynanaa xilkaa cusub ee lagu doortay waxaanan rajaynaynaa in ilaahay kula garab galo adiguna aad silxiqaantid oo intii ku dooratay iyo intii kaa codaysayba aad u tahay maanta guddoomiye waxaanan leenahay maanta waa maalin weyn waa maalin dimuqraadiyaddii loo hiiliyey oo si fiican oo sharaf leh golihii wakiiladu ay u codeeyeen iyadoo aan la isxagan iyadoo oo la wada qoslayo oo meel la wada eegayo in maanta loo codeeyo guddoomiyihii koowaad ee golaha wakiilada waxaan leenahay axmed yaasiin sheekh cali ayaanle mabruuq baan ku leenahay aad iyo aad baan kugu hambalyeynaynaa ilaahayna ha kula jiro hiil iyo hoona waanu kula garab taagannahay dhammaanba golahana waxaan leenahay waa guul u soo heetay golihii wakiilada dhammaantoodba intaas baan ku soo gabagabaynaya waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta waxaan hambalyeynaynaa guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada axmed yaasiin sheekh cali ayaanle guddoomiye-ku-xigeenka ee koowaad ee axmed yaasiin sheekh cali ayaanle ayaan hambalyeynaynaa aan hambalya leenahay sidii fiicnayd ee baarlamaanka u doortay ee wanaagsanayd ayaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa. waxaa kaloo hambalyeynaynaa salaadiinta golaha dhaqanka ee salaadiinta ee intaasba u taagnaa ee hawsha ku jiray aad iyo aad baan u hambalyeynayaa golaha. midda kale waxaan kaloo hambalyeynayaa xukuumadda iyo ragga kale ee xisbiga kulmiye ahaa. magacaygu waa suldaan mahdi suldaanka qurba joogta somalilan waxaan halkan ka hambalyeynayaa axmed yaasiin sheekh cali ayaanleh oo ku guulaystay ku-xigeennimada baarlamaanka. shacbigii qurba joogga waxaan leehay soomaalina waka waad aragtaan waxeedu waa gacantaag arrinkaygu waa doorasho dee doorashada soo socotana ninkii ka seexda isagay u taallaa ninkii yimaadana sidaan buu u guulaysanayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. أحمد ياسين شيخ علي أيانلي مقعاق الله راجو عمرقاقنا الله راجو إن شاء الله تلذنا الله كوافجيو قودهان حكومة الصومالي لاي إلهي تي وقرقاري تلذنا لقو اتفاصونا الله كيهلو. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد. horta ilaahay baa mahadle marka hore ilaahay baa mahadle waxaan u fadhinaa halkan hambalyada ay suldaanadu soo sheegeen iyo cuqaashaba ay ka dhawaajiyeen waa taasun bay ila tahay aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa axmed yaasiin sheekh cali ayaanle guushii uu ku guulaystay inuu noqdo guddoomiye-ku-xigeenka koowaad aad baan u hambalyeynaynaa. runtii waa intay duqaydu soo sheegeen weeye waxaan aad iyo aad u hambalyeynaynaa jamhuuriyadda somalilan oo golaha wakiiladu doorashooyinka iskaga dandambeeyey sida quruxda badan leh hawshaasi ay u dhammaateen doorasho isku doorteen baan aad iyo aad u hambalyeynaynaa. hadday guddoomiyaha hore tahay aad baan hambalyeynaynaa baashe haddii ay guddoomiye-ku-xigeenka labaad ee maanta codka badan ku guulaystay yahayna axmed yaasiin sheekh cali ayaanlena aad iyo aad baan hambalyeynaynaa. waxaan aad ugu mahadnaqaynaa waxaan aad u bogaadinaynaa waxaan aad u soo dhoweynaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hadday tahay xukuumadda hadday tahay xisbiga kulmiya ee xisbi xaakimka hadday dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa aad iyo aad baan ugu haynaa haddii alla yidhaahdo cid kasta oo hawsha ayadaa ka qayb qaadatay waad mahadsantihiin baan leenahay. waxa weeye intaasaan maanta
ku soo gabagabaynaynaa dhammaan mas-uuliyiinta la doorteen waxaan leenahay xilka allah inagu asturo marka hore waa la tartamaa waa la isbarbar yaacaa laakiin ciddii xilka ku guulaysata dhammaan ummadda dalka ayay mas-uul u yihiin dhammaan ummadda ayaa u siman waxaan leenahay dhammaantiinna xilka allah inagu asturo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu